waxaas ma aragtaa bahalkaa yar si fiican u fiiri. bahalkaa yar aan gacanta ku hayo waa dilaa qarsoon. waa batri yar oo loogu talagalay remote-ka saacadaha gawaarida maxaa la dhahaa furayaasha gawaarida oo wireless-ka ama through wifi-ga isticmaala iyo wixii la midka ah. waxyaala yaryar ku jira sida greeting cards iyo wixii la midka ah iyo toyska ama bombolooyinka xaafadda ee carruurta ay ku ciyaaraan, carruurta qaarkood ay ku ciyaaraan. bahalkan asaga xaafaddana wuu ku yaalaa. bahal laga taxadar u baahan waayo khatare. waxaa lagu qiyaasaa dhibka batrigaa yar uu keenay iyo dhimashada ilmaha uu keenay 10 sano lasoo dhaafay inay 9 jibaarantay 9 times. maxaa keenay oo bahalkan uu khatar u yahay oo haddana silent killer u yahay ma dilaa qarsoon u yahay? waxaa keenay sababtoo ah bahalkan badanaa wuxuu ka samaysan yahay batriyadiisa lithium waxaa la dhaho. ilmaha waa laga yaaba waxyaala badan ay ilmuhu laqaan ama sanka iska geliyaan ama meelahan gashadaan. ilmaha oo badanaa dhibkan uu keenana waa ilmaha oo gurguuradka bilaabaan 6 bilood ilaa 3 sano intay si fiican u aqriyaysan. waxaa laga yaabaa inay laqaan markay laqaan runtii meelan u istaaga ama caloosha u galo ay dareemin waxaan inuu milmaa laga yaabaa. markuu milmo wuxuu leeyahay bahalka basic waxa la dhaho gubahayo oo dil maartay uu ku jirto gudaha baabi'ini oo nabar weyn u keeni ilmihina inuu dareemina dhici karta. cunug carruurta kamid ah waxaa dhacay cunug inuu laqay hooyadii ay dareemin. cunugii inuu dhuuntan hungurigan uu duleeliyey 2 meelood uu duleeliyey uu sii mariyey. markii dambe markii la ogaaday raajada la saaray wadnaha agtiisa laga soo qabtay. waxay keentay cunuga asaga batriga yar daraadii in uu ila qaliin intaasoo qaliin u galo oo ilaa 2 sano la daba socdo ilaa uu normal ka noqonayo oo noloshiisana maartay khatar way gasho. marka bahalkan asaga haddii ilma aad dareento inuu laqay cuntaha siinin biyaha cabsiinin ha lala soo ordo isbitaalka la keeno dhakhtar loo keeno ha loo sheego raajana ha la saaro ha la xaqiijiyo sababtoo raajada way soo saari. dilaaga qarsoon ee labaad aan ka hadli rabo maanta ama arrinta khatarta kale aan ka hadli rabo ee marmar dhacda taa meesha naga dhig waa ilmaha yaryar khaasatan markay dhashaan ilaa sanad ay ka gaarayaan waxaa dhici kartaa cunugii asagoo ku jiifa saad ogeyd in cunugii oo meydaba u imaato. mar badanna way dhacda. maxaa keena? waxa ugu muhiimsan ee cunugaas dhibka weyn u keena waa meesha aad seexinayso. seexidda ilmaha horta 2 mid waayo. su-aasha koowaad waxay tahay ilmuhu ma in hooyadii sariirta ula seexdaa fiican mise inuu baby koodkiisa ama sariirta carruurta uu ku seexdaa fiican? ilmo badan waxaa dhacday hooyada khaasatan iyadoo nuujinaysa inay ku seexataa dhici kartaa ama ninaasku yar weyn yaha dhici karta oo ay cunugii ay neefta ku dhejiso. weliba riskiga ugu badan ama khatarta ugu badan waxay soo gaartaa ilmaha yaryar oo dhiciska ama bisha ugu hore ilmaha yaryar yihiin. ilmihii marka awoodna ma lahan waxbana ma lahan. ayada waxaa laga yaabaa inay qof iska hurda waaye dadka iska hurda xun waaye ay cunugga ku kor seexatoy buuratabo. marka waxaa ugu ammaan fiican cunugu in sariirtaada ma ahe sariir agtaada taala oo ama tanoo kale hata baby coodka ama kuwa weyna noqda in la seexiyo oo adiga uu sariirtaada kula seexnin. saasa ugu wanaagsan oo ugu fiican. sariirta marka cunuga maxaa maarta seebaa la rabaa inay noqoto si cunugii ammaankiisa uu okay u noqdo? waa midda koowaad sariirta canuga kolka hore baashan sariirta meesha soo dhacaysa oo laga marna la furi marna la xiri leh waa inay ahaanin. ulaha u dhaxeeya sariirta oo ulaha u dhaxeeya meeshan leh haddii ay meel soodho oo kale ay mari karto ay jirto soodho meel laga soo bixin karo kale gacanna way geli kartaa madaxna lugna way geli kartaa madaxna way geli kartaa. taas means cunuga khatar ay noloshiisa ku tahay. sariirta cunuga meeshan ay u dhaxaysa darbigan iyo furaashkan hadda ku jira meeshan hal gacana hadda meeshan gashay 2 farood hal faraa gashay 2 farood haddii saan u geli karaan 2 farood haddii geli karaan hadda hal faraa gelisa khatar ayuu ku yahay cunug ku yahay. marka maxaa loo baahan yahay? waxaa kaloo muhiima in sariirta ayada meela in ka jajabnayn
meela maartay lug kamida jaban iyo wax saas iyo waxa ay dhicin sababtoo cunuga hal mar ay la gadoomi kartaa way khatarta marka waa inuu riskiga iyo khatarta aan ku qaadanin oo sariirtiisu ay okay waxaa kaloo muhiima sariirtan inaynan lahaanin go iyo waxyaalo dhex yaalo cunuga ciijin kara ama neefta ku dhajin kara reema cunuga dusaa isku gadin iska diikan wax yaroo sanka ka fuula aan neefta ku dhajin karo dili kara marka bustaha go-yaasha marooyinka iyo wixii la midka ah iyo waxyaala kalaba haddii ku dhex jiraan meeshan boombalooyinka lagu ciyaaro waxaas dhan lagama ogol meesha sariirta cunuga bas waxaa loo ogol yahay furaash adag iyo go si fiican ugu dhagahayo oon mar kasoo babaxayno cunuga markaa aan qabsanaynin intaasaa muhiim ah badanaa bustooyinkan iyo go-yaasha la isticmaalayo cilmaha markay aad ku yaryariin waxaa fiican weliba inay wax yihiin basal si fiican loogu duuduubay ama kooti oo kale cunuga uu qabo oo saasa si wixii intuu ka baxsado aynan sanka aynan u caburinin oo maarta inooga dhigin marka taas ayaa cunuga markii aad soo qaado sida hadda bahalkan baby coat-kana aragto meeshana yara koraysa dhinacna waa yara hooseysa saasaa fiican laakiin inay falaad ahaato naftigeeda wax dhiba ma jiraan waxaa kaloo muhiim cunuga inaad u seexiso dhabar u seexiso taasaa ugu fiican khaasatan inaad dhabar u seexiso soo mar waxaa dhacda cunuga hadda saa u seexiso inaad af seexdo saana u seexani mana oyni karo mana xabana ma maqlaysid khalaas cunugii naqaskaa ku dhagaya taasi marka waa dilaa qarsoon oo khatar ah oo laga taxadari karo oo arrintaasina ma aragtay ilmaha sharka u keenaya dhibka u keenaya ee laga maarmi karo waaye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu